الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان خيارتا يا أهل الشرف كالصوماليات سيخاسا رئيس السيخ خاتمو وحان الله سلانا كوركينها هاتو ميلا جوكتان با وكالمدن وحان قلت لك علي إنان laba eray oo wacyigelin ah iyo laba eray oo xoga aan halkan ka idhaaho. waa rajeynaya inaad maqlaysaan oo aad gaadhsii doontaan inta aan maqlayn ama aan arkayn insha allah. marka soo dhawaada. lama joogto miya hadda? محمد محمود أنا أبغى كل سلام يا سيدو. أنا قفا يقول فلان إن شاء الله وأسكت جاردون أنت كلا. والدور قريبا محكورن دونا بإذن الله كريم. خذك كواد وحن محكورن دونا. واحد شفت خطبة وتشيدي مدحوينا حسن الشيخ محمود. وخطبة كتشيدني وطن كتركيا. تفاصيل بدن لقب بحيي ملاها اللغة الإنجليش كنا معناها بدن بيلاده هاي السدا. sida carabiga sida Soomaaliga loo jiidaayo waxay radaan Soomaalida hadalku waa mirgi malaha kaasna uu jiidma laakiin aniga waa la iga badaya dadka hadaan wareystay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu kaleer ka dhigay in Somaliland meesha looga yeeraa ay tahay qayb kamid ah Soomaaliya. hadiiba madaxweynuhu uu cadeeyay oo uu isticmaalay ereyga la yiraahdo Somaliland is part of Somalia. waxaan isweydiiyay meesha laga keenay SSC wuxuu ku sheegay Somaliland. qodobka labaad wuxuu sheegay meesha laba state oo ka jira in conflict ka dhaxdhacay conflictigana aanay dawladdu qayb ka ahayn. ujeedada ra'iisul wasaaraha meesha uu tagay markii la weydiiyayna wuxuu sheegay inuu qorshihiisu yahay ay ka mid tahay hawlihiisa inuu nabad ka raadiyo suurtagal ka dhigi karo in jawi wada hadal oo bilaabmo oo maxaabiis la sii daayo. waxaan maleeyahay xasan sheekh waa madaxweynihii Soomaaliya nin reer SSC ma aha, nin daaroodana ma aha, nin hartiyana ma aha. lagamana filin inuu yiraahdo SSC baanu haru jiidaynaayo SSC baanu aqoonsanaynaa, lagama filin. wuxuu ku hadlay positionka uu ku magacaabay hadalka ku habboona halkaana wuxuu ku sheegay inay tahay qayb gobol wadankiisa kamid ah isaguna oo madaxweyne u yahay ra'iisul wasaarihiisuna shaqooyinka noocaas oo ka soo qabanayo. Twitterkii marka uu soo diray Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale oo aan aad u ixtiraamayo oo runtii ahaa ilin dul bahantahay garaadadu waxay isbarteen berigi dhoweyde hore isma aqoon moogta. xogayihi arrimaha dibadda ahaa ee halganka runtii shaqo adag soo qabtay. meesha uu ka keenay in Xasan Sheekh uu ra'iisul wasaarihiisa dhabarka ka toogtay amaba uu yiraahdo SSC baa waxa lagu sheegay Somaliland. arrintaas dhowr qodob baan iska dultaagaya. marka ugu horeysa garaadada guud ahaan iyo gaar ahaan inta hadda Nairobi joogto in iskala warhayno waxaa ka mid ah Garaad Jaamac Garaad Cali oo gala dagaalka ka mid ah. waa nimankii dadkan u gudoomiyay 6 February 2023 in maamulkan la yiraahdo SSC Khaatumo isla markaana aanu ka tirsanayn maamul kale oo daris ah si toosana uu u hoostago dawladda federaaliga ah ee Soomaaliya. dawladda Soomaaliya marka lagu yiraahdo dawladdu shakhsiyaad ma aha. Soomaalinimada iyo dawladnimadu waa mabaadi lagu dhaqmo. Soomaalinimaduna waa wax loo dhasho. dhulkana dhulka Soomaaliya la yiraahdaa. dawladda Soomaaliya la yiraahdaa. laakiin ashkhaasu way isbedelaan. lama oran oo wax dooda lagama keenin in uu Xasan Sheekh madaxweyne ka yahay oo Xasan la diidan yahay. in xamse ra'iisul wasaare yahayna faala lagama gelin.
laakiin nimankii xilka loo doortay waxaa lagu dhaariyey inay yihiin maamul goboleedka SCC Khaatumo isla markaana hoostaga dowladda federaalka ah. nimankaasi la dhaariyey waqti badan bay waxay geliyeen inay ilaaliyaan oo ka dhabeeyaan wixii ay u dhaarteen. in firdhiya xamaraado oo ama xamse la kulmo ama xasan sheekh la kulmo ama fiqi la kulmona ama laba qaabili waayo ama wax la siiyo ama la qadiyana isagu eedeeda ma leh. inuu xamar tagaana waa caasimadii Soomaaliya waana waajib hadduu ku soo qado iyo hadduu ku soo dhirgaba. waxay tahay marka su'aashu bacda tacab wa shidda oo nimanka la dhaariyay ay mareen waxay ku guuleysteen dowladdii Soomaaliya inteedii badnayd oo guuraysa inay lascaanood keenaan. ninka wixii loo diray hadduu ka soo dhalaalo wuxuu u baahan yahay in la mahadiyo. anigu hadda luuqadda cid kale kama haya waxaan rabaa garaad mukhtaar garaad cali inaan weydiiyo. maalintii dastuurka lagu murmayna nin garaada baa hadlay oo la odhan Cabdikariin Cali Nuur. ninkaa waxaan ku yidhi Cabdikariinow waxaa jirta xan la leeyahay niman isimada ka mid ah ayaa waxay ka laabteen mucaahadadii la galay February 6 oo loo dhintay dadkana loo dhaariyey, laakiin weli waxay ku bedeleen aan sheegin. waxaan rajaynaynaa inaad soo wada baxdaan oo bal hadda aad dadka u sheegtaan waxa aad doonaysaan iyo waxa aad diidan tihiin. midda labaad, ninka isimka ahi waa hogaamiye dhaqameed. SSCna waxaa loo sameeyey dowlad arrimaha siyaasadda looga dambeeyo. axdiga ku meel gaadhka waxaa lagu qoray isimadu inay yihiin marjac ah. waxaad u baahan tihiin inaad xafiiskiina ku sugtaan wixii khaldana oo aad aragtaan, laakiin inaad hor orodaan dee sax maaha. hadday dowladdii Soomaaliya inteedii badnayd soo guurtay oo ra'iisul wasaarihii hogaaminayo oo lascaanood ay shidan tahay, wixii dhiig qulqulay laaska soo maanta lama dheefsan. Soomaalidu dhammaanteedna sawcaawa uma dheelman. cadowgii dhafoorada xumaa sooma kala dhuuman. shisheeyuhu kuway dhaansadeen sooma dhamakaagin. wixii ay dadkeenna u dhinteen sow dhab uma muuqan. aniguna sujuudaan u dhacay sow dhab uma seexan. haddii dowladdii Soomaaliya ay soo guurtay oo ay lascaanood soo degtay, guushii militarina hore loo qaatay, tii siyaasadeedna la xaqiijiyey, ninka garaadka ah oo warqadda ka soo daba tuuraya oo madaxweynihiisii dhaafaya oo ku-xigeenkiisii dhaafaya oo baarlamaankii dhaafaya oo madaxweynihii Soomaaliya u baxsanaya yuu u shaqaynayaa. niman yahow garaadada la yidhi waa garramaynaa. gobonnimadu waa geed ku baxa dhiigga geesiga. wallay wiilashaynii galbaday goolal dhaliyeen. kuwii ciidda galay waa kuwaa gooyey sharafkii. guddidu garaad jaamac xulayoo la wada gaatay. gogoshay dhigeen waa idinkaa maanta soo galay. wixiise horay idinkala gale guuldarrada keenay. haddaydan garowshiyo bixin oo isgarab joogsan oo aydin laabaha isgelin oo isgacan qaadin, gunnada iyo sabaalada la wada gees isaga leexin, rabbi baa gargaaree xornimo gelin laabtiinna. gunnimadu haddeeray sidii geedu baxaysaa. wallaahan waxaad goobaysaan abad la gaadhayn. kama tanaasuli doono inaan taa xaqiijiyo, inaan xasuusiyo garaadada oo aan idhaahdo waxaad ahaydeen nimankii qaatay kareedhidkii ugu badnaa dhiiggii daatay. inaad maanta dowladdii Soomaaliya oo lascaanood u soo guurtay dhalliishaan, taweedhar ka soo daba tuurtaan, weliba alliftaan waraan jirin. garaad mukhtaar garaad cali waxaan ku odhanayaa anigu ku sheegi maaye camalkaagu yuu ku sheegin. waxaan apologize ka siinayaa madaxweynaha Soomaaliya in hadalkiisa la bedelay. waxaana uga mahad celinayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa inay ka markhaati noqdeen wixii aanu u dhimannay, inay nagu abaalmariyeen inay noo yimaadaan, inay cadowga iyo nacabkaba tusaan
inaanu maanta saxannahay haba naga soo daaheen waray qodobka garaadka iyo madaxweynaha intaasan ka odhanaya qodobka saddexaad qodobka labaad baan leeyahay ama waa saddexaad waa saxanahay waxaa jirta luuqadda cadowgu uu adeegsanayo iyo luuqadda youtuberada waxaa laga dhex shaqaynayaa dowladda Puntland la yiraahdo iyo SSC shacabkii baa la isku dirayaa SN markay tamar kala weyday waxay sameynayaan isku dir afka dowladda Puntland baa waraaq lagu soo saarayaa afka dowladda Puntland baa lagu hanjabayaa afka dowladda Puntland baa lagu caytamayaa dad wax magarata baa la kireysanayaa arrintaas waa khatar jirta oo muuqata waxa kaloo jira wiilal youtuber ah oo dadka marin habaabinaya oo jaha aan sax ahayn u kaxaynaya anigu haddaan soo fadhiisto ku dhaahdo waxay ila tahay dee waa inaad control yeelataa waana inaad garasho leedahay warka lagu sheegayana waa inaad ilaha saxda ah ka raadisaa inuu dhiigu iskaga kaakaco maaha inaad dadka caydid maaha waxa waa la hubiyaa ilaahay baa quraankiisa wuxuu ku leeyahay wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum naadimin hadduu faasiq war idinkeeno iska hubiya si aydan jawaab degdeg u bixin kadibna aydan uga qoomamoon waa waxa Soomaali halaagay hubsina la'aantu cirra hadlayo qolayaha soo dhaxraacay oo uu hanjabay wuxuu la sanad waa Somaliland cirro waa ixtiraamaya runtii nin waayeela cimrigiisu iyo aqoontii Soomaaliya ka faa'iideystay in hadda wixii ka horeeyay afkiisa laga nabad galay buu ahaa laakiin cirro waxaan rabaa inaan xasuusiyo wadadii halaaga oo nimanka hadda iyagoo nool la dilay oo ina biixi iyo ina kaahin iyo ina waran caday ay kamid yihiin wadadii halaaga maraan ka digay dadka halka degan aan u sheegayay wadada halaaga inay hayaan ba waxaan lahaa 30 sano wixii been la diray oo 30 sano durbaankii tuna oo mardami waay deris iyo shisheeyaba wixii beenta lagu daaji wixii diirka Soomaaliyeed laga diqoonay dulligii Tigray iyo Amxaar duuda lagu qaato duqay oo caqligu dowray oo gadaya diintooda oo uu damiirkii dhinto shilimo doonaya oo uu shisheeyuhu dirsaday oo u darayaysan oo aan dadkooda u naxayn taladii loo daay wixii qowmaluud loo dalbaday oo la dirajeeyay dugsiyada intii loo fasaxay ciidan lagu dayay dariiqyada ilaahay xarimay sharafta loo doontay dulmigii coldoon iyo ku dhacay xumaha kii diiday wixii diinta loo diray adna oo dollar lagu qaato iyadaan dariiqeed la marin doodna laga yeelan sidii dowlad loo noqon lahaa naarta lagu doorto markii aan ka digay oo la day waay oo dil qorshaysanayo laygu daray xaalad dabargoyn ah dambay noqotay maanta inaan koro darmaankii annaga iyo dilaalinta Yurub daawo ma lahayn abiidkeen waxaan diidanahay waan ka dirirnaa waligeen dariiq uma banaynimay duleysteen annaga iyo dilaalinta Yurub daawo ma lahayn abiidkeen dariiq uma banaynimay duleysteen cirro waxaan rabaa inaan u sheego waa ogtahay wadada uu ku dhintay Siilaanyo waa ogtahay Muuse Biixi iyo ina kaahin iyagoo nool inay dhinteen waxa ku furan dadkaaga inaad badbaadisid waxa ku furan wadadii kibirka iyo halaag inaad ka leexatid waxa ku furan adduun iyo aakhiraba inaad si iimaan qabta u fikirtid waxa kugu furan dadkaaga akhlaaqda iyo iimaanka siday u soo ceshan lahayn inaad ka shaqaysid sool waa Somaliland iyo waa xuduudaheena iyo war waxaas waa kalaam faariq waa kidib weeye waa munaafiqnimo waana wadadii halaaga nimanka la yiraahdo youtuberadana waxaan rabaa inaan ku dhaahdo